kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda dhulka Falastiin. War degdeg ah oo hadda soo gaaray ayaa sheegaya in Xamaas ay guulo hor leh ka sheegatay ilaa 17 degmo oo ku yaala magaalooyinka dhaca koonfur ee dhinaca Israa'iil, waxaana la warinayaa in dhawaqa digniinta 3 saac ee ugu dambeysay laga maqlay magaalada Tel Aviv, caasimadda Israa'iil. Haddaba maxay tahay guusha taariikhiga ah oo ay Xamaas hadda sheegtay? Waxaana la warinayaa in xogaha qaar ay tibaaxayaan in magaalada Ashkelon hadda ay soo buuxdhaafiyeen taangiyadii ugu badnaa ee gumaystaha Israa'iil si ay u difaacaan magaaladaasi oo marin muhiim u ah. Geesta kale ama dacalka kale ee magaalada waxaa ku sugan xogaga hubeysan ee xaq u dirarka Xamaas, guutooyinka Ciisaddiin al-Qassam oo qaybo kala duwan leh sida qaybta madaafiicda, qaybta gantaalada, waxaana Abu Cubayda afayeenka kooxdu uu sheegay inay hadda ay magaaladaasi ay qarka u saaran yihiin ciidamada hubeysan ee Xamaas, isla markaana ay dacalka kale ka joogaan gumaystaha Israa'iil. Maxaa soo kordhay oo magaaladaasi ka jira? Macluumaad hor leh ayaan idiin baahin doonaa oo 3 saac ee ugu dambeysay ka imaanaya gudaha Israa'iil. Tel Aviv maanta qalqal ayay gashay maadaama markii saddexaad dhawaqa digniinta badbaadada laga maqlay xilli baarlamaanka Israa'iil ee kaniisad uu kala carar ka dhacay, iyadoo Netanyahu iyo hoggaanka sare ee sirdoonka Mossadka Israa'iil uu soo kala dhexgalay khilaaf xoogan. Warbixinadaas iyo kuwo kale oo degdeg ah ayaan daawadayaan idinka daba geenayaa. Marka hore muuqaalkan share gareeya si aan taageero ugu muujino walaalaheen Falastiin tan iyo inta uu soconayo dagaalkan oo dabeeqadiisa guul kusoo dhammaan doono insha Allah. Qaybta faalada ku reeb guul insha Allah walaalaha Falastiin. marka hore daawadayaal aan ku horeysiiyo magaalada Ashkelon oo ah magaalo istiraatiiji ah isla markaana yuhuudda muhiim u ah, iyadoo Xamaas guutooyinka Ciisaddiin al-Qassam ay gacanta ku dhigeen meelo ku dhow magaaladaas, waxaana ay sheegeen inay qarka u saaran yihiin oo xitaa ciidamada qaar ay isku muuqan karaan. Afayeenka kooxdaas ninka la yiraahdo Abu Cubayda ayaa sheegay inay dhowr gantaal ku tuureen magaalada oo ay gudaha u galeen. Dhinaca kale waxa uu sheegay inay diyaariyeen ciidamo hubeysan oo gudaha u gala magaalada, isla markaana qalqal gelin kara Israa'iil iyo taangiyadooda. Geesta kale magaalada Tel Aviv, caasimadda Israa'iil, waxaa maanta ka dhacay baqdintii ugu weyneed maadaama 3 goor oo isxiga laga maqlay dhawaqa digniinaha ee badbaadada xilli xarunta baarlamaanka Israa'iil ee kaniisad lagu kala cararay, iyadoo baarlamaanka uu joogay ra'iisul wasaarihii Israa'iil Benjamin Netanyahu. waxaa sidoo kale idiin warinaya daawadayaal oo Al Jazeera ay daabacaysaa khilaaf xoog leh oo soo kala dhexgalay sirdoonka ugu sareeya Mossadka Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaas oo dhowaan magacaabay 5 nin oo isaga uu ku jiro oo noqonaya golaha hogaaminaya dagaalka. Haddaba waxaa ka soo horjeestay go'aankaasi hoggaanka sare ee sirdoonka Mossad ee Israa'iil ayaa la leeyahay, taasoo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu hogaamiyaha yuhuudda ku dhalisay caro xoog leh. Macluumaad ayaa sheegaya in Netanyahu uu ka fakarayo cidda uu ka dhigayo hoggaanka Mossadka Israa'iil. Geesta kale marinka Rafah oo muhiim u ah shacabka Falastiin ee go'doonsan gaar ahaan magaalada Gaza, weli waxaa ku sugan marinkaasi oo safaf dhaadheer ku jira gawaarida sida gargaarka aadantinimada, iyadoo baqdin laga muujinayo dadka dhibaataysan ee ku sugan marinkaasi. 100,000 kun oo ka mid ah shacabka Falastiin ayaa doonaya inay ka gudbaan marinkaasi si ay naftooda ula baxsadaan. Gawaaridii aadantinimada ee bini'aadanimada siday shixnadaha kala duwan weli way ku xayiran yihiin marinka Rafah ee u dhexeeya Masar iyo Falastiin. Warbixinadeena kale caawa la soco si aan idinku soo gudbino daawada.